soo dhaweyn balaaran ayaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar loogu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdulle Maxamed Cali Gaas. labada madaxweyne iyo waftiyada la socda oo socdaal ku maraya gobolada Bari iyo Karkaar ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay xarunta dhaqanka ee Qardho waxaana ay soo dhaweynta kadib la hadleen qaybihii bulshada ee ka qayb galay soo dhaweynta. faafaynta warkaasi waxa magaalada Qardho ka soo diray wariyahana Yaxya Nuur Muumin. kumanaan shacabka reer Karkaar ayaa ku sii diyaar garoobay goobta lagu magacaabo Caduura oo magaalada Qardho u jirta 10 kiiloomitir kan xigta dhanka koonfureed. soo dhaweyntan ayaa u dhacday qaab ka duwan soo dhaweynadii hore uga dhacay magaalada Qardho waxaana ay noqotay mid gashay taariikhda. socdaalkan oo loogu magac daray socdaalkii nabadda ayaa ka soo bilowday magaalada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hogaaminaya madax ka kala tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo tan Puntland waxa ay safar luga ku soo mareen deegaano iyo tuulooyin u dhaxeeya magaalada Qardho iyo Garowe ayagoona soo dhaweyn ka gudoomiyay kuna hakanayay dhammaan tuulooyinka iyo degmooyinkii ay soo mareen. inta aysan soo gaarin madaxda magaalada Qardho waxa TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland la hadlay qaar ka mid ah dadkii ku diyaar garoobay goobta lagu magacaabo Caduura una diyaar garoobay soo dhaweynta madaxda. bismillaah maanta waxa ku sugannahay xarunta dhaqanka guriga boqortooyada magaalada Qardho oo halkaas aan ku soo dhaweynayno xurmad leh madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. runtii shacabka reer Qardho aad bay ugu diyaar garoobeen si qurux badan inay u soo dhaweeyaan madaxweynaheena. runtii waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow magaalada Qardho. waa dadkaagi iyo dalkaagi oo ku hamuun qaba bayaal isimo uqaal haween dhalinyaro mutacalimiin kabood intaba waa lagu dhanyahay waxaana la soo dhaweynayaa oo meesha loo taagan yahay sidaad arkaysaan qorraxda tan waxaa la soo dhaweynayaa madaxweynihii dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii Puntland oo la socda. waxaan ku faraxsanahay imaanshaha Puntland yimi madaxweynaha Soomaaliyeed federaalka gudoomiyaha gobolka iyo degmadiisaba soo dhaweynta anoo ku hadlay magaca ururka haweenka Puntland soo dhaweynta oo ay sameeyeen oo qiimaha badan wax taariikh galaweeye soo dhawow baan leenahay madaxweyne. waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama uu noo imaanayo madaxweynihii Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow guriga dhaqanka Soomaaliyeed ee Qardho gobolka Karkaar. waxaan soo dhaweynaynaa halkaan u taaganahay xilligan soo dhaweyntii madaxweynaha Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdiga culus iyo madaxweynaha Puntland iyo dhammaan wufuudda la socota. waxaana leenahay ku soo dhawow mudane madaxweyne xarunta dhaqanka Soomaaliyeed ee magaalada Qardho. waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow shacabkaagi ku jecel isku soo dhawow. markii la doortay shacabku waxay u soo dhaweeyeen si aan caadi ahayn. maanta dhammaan goobihii waxbarashada goobihii shaqada kulli way xiran yihiin banaanka loo soo wada baxay. waxa la soo dhaweynayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. shaqadu si fiican bay u socotaa. aad iyo aad baan u rajaynaynaa insha Allah in Soomaaliya midnimo gaarto. shacabka gobolka Karkaar maantay waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha federaalka Soomaaliya Mudane Farmaajo. waxaan leenahay daan reer Karkaarnahay mudane madaxweyne soo dhawow waa lagu sugayay oo ku baahnayn shacabkaagi baa u nahay hadii jeer inta ilaa saaka qorraxda wax loo taagan yahay waa soo dhaweyntaada. habeeno Farmaajo Qardho ku soo dhawow dadkaagi ciidaadi dadweynaha reer Qardhood khiyaarta gabdhaha marwooyinka hooyooyinka odayaasha waxgaradka dhalinyarada dhammaan maanta waxay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan madaxweynahooda dowladda federaalka ee Soomaaliya. hawshuna halkaas ay inoo ka socon doontaa. meeshan taaganahay waa Dardaare waxay u jirtaa magaaladii 10 kiiloomitir in la eg baanu soconaynaa. President Farmaajo and the President of Puntland, President Abdulwali Ali from Al Azhar Institute in Qardho. All the Egyptian teachers came today and the Somali staff. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa goobta soo gaaray
waxaana ay mid u gacan qaadeen cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntooda una soo baxday si sharaf ku dheehan tahay ayaa loo soo galbiyay madaxda waxaana loo soo gudbiyay dhanka magaalada Qardho meel kasta oo kamid ah magaalada waxa taagnaa shacab aad u tiro badan oo muddo sugayay soo dhaweynta madaxda federaalka iyo Puntland afaafka hore ee madaxtooyada Qardho waxa isugu yimi kumanaan reer Karkara waana halka ay madaxda kula hadleen shacabka reer Qardho duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan Dheere iyo Cabdullaahi Maxamed Barre Caato oo ah gudoomiyaha gobolka Karkar waxa ay si wada jira magaalada Qardho ugu soo dhaweeyeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dawladda Puntland farbaday aad soo noqotay insha Allah waqtigu waa kooban yahay waxa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka waxa la gudoomiye labada kelmo doorashadaadii iyo magacawgii ra'iisul wasaarahaaga iyo golahaaga xukuumadda haddana waxay sugayaan kelmadahaaga qaaliga ah inaad si fiican uga faafido ummadii reer Qardhoodooda arkayso tiradooda intaasi kadib waxa shacabka la hadlay madaxweynaha dawladda Puntland Professor Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxaana uu uga mahad celiyay soo dhaweynta heerka sare ay maanta u sameeyeen madaxweynihiinii oo jecel inaad jeceshihiin ayaa maanta idin yimid soo booqday insha Allah isagaan u deenayaa marka kelmadiisa inuu yiraahdo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la hadlay kumanaan reer Qardhooda maalmihii la soo dhaafay ilaa maantana heegan ugu jiray soo dhaweyntiisa ayaa hadalkiisa ku bilaabay Soomaaliya ha noolaato ومحسنتي سومالي هنولاتو وحنين رجاي قول وحنين رجاي خير آدي أنا وفرح سنة هاي حقيقة وافلاي محايا لي وحنوجا حبيكي دور شذا فبرايس دي ساو صباحدين وعن مرلبات إذا كان مهد علينايو بعد محسنتيين إذن كو ساكا يودن تاغن قرحدو كل شهي soo dhaweyntiina wanaagsan oo diiran walaalayaal waxay ka turjumaysaa inaad tihiin dad dawlad jecel inaad tihiin dad dawladooda jecel inaad tihiin ka turjumaysaa annagana waxaan ugu balana inaan jaceelkaas idin soo gudbino oo aan dib idinku soo celinno oo aan idin adeegno oo aan idin shaqeyno hadduu Ilaahay yiraahdo idinkuna waxaan idinka codsanaynaa inaad taageeradiina sii wadaan oo aad garab istaagtaan dawladdiina dawladda maxaan ku raahdaa Puntland aad garab istaagtaan madaxweynihiina aad garab istaagtaan oo aad taageertaan dawladda federaalka aad garab istaagtaan oo aad taageertaan annagoo mid ah oo wada shaqeynayna yaan dalkan horumar iyo barwaaqo gaarsiin karnaa ummaddu markay isku duuban tahay ummaddu markay iskaashanayso ummaddu markay isku kalsoon tahay yay horumar gaartaa soo dhaweynta loo sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa ahayd mid aad u sareysay Yaxya Nuur Muumin telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Qardho